Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ana magacaygu waa Maxamed, waxaan jiraa 12 sano. Waxaan la noolnahay familkayga. Walaalkay Axmedna wuu iga weyn yahay. Markasta anaga waxaan ahayn family faraxsan. Aad iyo aad u faraxsan baan ahayn. Hooyaday iyo aabbahay markasta supermarket-ka ayay aadi jireen. Waxaan cunno ayay noo soo gadi jireen. Waxay dhihi jireen guriga canaha ka furnayna han kala taganina intaan supermarket ku maqannahay. Walaalkeen ayaa markasta wuxuu jeclaa inuu ciyaaro kubad oo saaxiibkiis la soo ciyaaro jeclaa. Anigana badanaa waxaan jeclaa inaan game ka ciyaaro. Waqti badan game ku lumiya ayaa jeclaa. Markii xilli dambe la gaaro aabbahay ayaa wuxuu dhihi jiray waa soo soconaa maxay guriga baaka ilaaliya. Hooyaday iyo aabbahay markaa waxay aadeen supermarket-ka. Aabbahay ayuu wax dhaawaa xilli dambe laakiin ciyaarkii aadne aabbahay ayaa la dardarmo wuxuu lahaa kala taganina ayuu aabahayna dhahay. Walaalkay ayaa dhahay waa arrin farxad aniga waxaan tagayaa saaxiibkay. Aniga markuu intaa dhahay waxaan ku dhahay may aas aabbo wuxuu dhahay waa maqlaysay sax u dhahay aniga waxa ii magal aabbo wuxuu dhahay ana saaxiibkay waa aadayaa. Marka dambe waxaan isku day inaan sasabo wuu iga diiday asaga laakiin wuu iga weynaa wuxuu igu dhahay waxba kaa magal aadi hadaa saaxiibkay aadaya. Saaxiibkiis ayuu aaday game ayuu wuxuu dhahay la sadheelayaa. Anigana waxaan is dhahday okay guriga gal. Aniga markii dambe hurdo ay qabatay waxaan isku dayay game baa ciyaaray sida hurdada gameka iskaga mashquuliyo. Gameka xilli badan aan ciyaarayay markaa arkay inay saacada tahay 1 saac oo habeenimo waa naxay oo suuliga ayaan galay oo faraha ayaan soo dhaqday. Aniga hurdo ayay haysay. Markii dambe waxaan maqlay sharqan guriga kasoo galaysa waa naxay. Waxaan is dhahay sharqata guriga kasoo galaysa yaa weeye. Waxaan is iri waa hurdaysan tahay mindhaa adiga weeye. Markii dambe waxaan ogaa inaan hurdaysnayn oo sharqanta aad u badan tahay. Markii dambe siraa walaalkay ayaa hadda soo galay iska daa. Haddana markii dambe waxaan ku fikiray inaan tartiib u socdo aan fiiriyo qofkii soo galay. Markaa sidaa meesha u istaagay aan tartiib socday waxaa arkay 3 nin oo feero waaweyn oo tuugayooyin ah. Markaa arkay 3 nin waa naxay. Markaas dhahay orod nin ayaa i qabtay anoo kor jarta gacanta ayay igu dhigeen. Waxaas dhahay maanta waa dhimatay waa la aftuubtay. Markii dambe waxaan arkay anoo la xiray oo indhihii laga xiray oo gacmihii lugihii laga xiray. Waxaan maqlay ayagoo sheekaysanay dhahayaan walaana boosiya inta nagu imaan familkiisana hadduu walaalkiis nagu soo galana waxay ahayd booliiska ayuu noogu cayaa isboosiya intaas ayaa ka maqlay maanta ayagoo intaas dhahaya. Ani waxaan isku dayay inaan iska furo indhaha maanta dhan baa isku dayay. Markii dambe indhaha way iga furmeen oo waa farxa markii indhaha iga furmeen. Waxaan isku dayay inaan wax fiiriyo soo wax arkay ninkii indhaha u furan. Marka arkay ninkan waa naxay oo waxaan gartay ninkan inuu ahaa ninka dariskeena oo noo dhow. Marka arkay ninkan intaa yahay ninkii markuu ii soo jeestay markuu wuxuu arkay in indhaha ii furan yahay. Ninkii dhaqsada wuu naxay oo wuxuu dhahay inihii yara ayaa ku arkay. Dhaqsada wuxuu xirtay afkii wuuna cararay. Waxaa la garan waayay wuxuu la cararay. Haddana waxaan maqlay ayagoo dhahaya cunugeerkaagu wuu arkay cunugeerkaagu way arkay. maxaa sameeyaa saakay kale ay ku dhahay doqon yahay maxaa afka u furatay. Hadda ana arintaas soo xalinayna keen. Markii ii imaanay waxay ugu dhaheen aabbaha wuu xafiiska ka shaqeeyo waa aqaana hooyadahana waa macalimad waa aad iyo aqaana walaalkan ardaygu weeye iskuulka dhigta. Hadda isku dayday inaana sheegto booliiska noo sheegtid intooda waa dilayaa adiga xataa waa ku dilayaa wuxuu dhahay ma kaa reebayo. Markii dambe anigu waa baqay oo waxaas dhahay ninkan waa ninka dariskeena ku dhow ama sheegtaa ama booliisku qabtaan. Ninkan aad ayuu nagu dhow yahay. Markasta aniga walaalkay ayaa soo mari jirnay. Marka arkay wajigiisa wuxuu dhahay hadda soo sheegtay iska jir waxaas kugu dhici doona. Aniga marka waxa sameeyay ma garaneen aad ay iska ooyay. Markii dambe waxay dhaheen nabixiya ordsiya walaalkiis ayaa soo socday. Anigoo ooyay waxay arkay walaalkay. Markuu walaalkay arkay anigoo ooyay wuu naxay oo aad ay u naxay. Markuu iga furfuray gacmihii iyo lugihii waxaan wacay aabbahay xaaladii ayaan u sheegay. Aabbahay wuxuu dhahay walaalkaa aaway oo muxuu qabanayay. Waxaan ku dhahay aabba aniga walaalkan waan la xirxiray oo waxa sameeyay ayaan garan waynay. Aniga walaalkay ayaa igu dhahay saas dheh. Markii dambe hooyo iyo aabba way noo soo ordeen. Markii guriga noo imaadeen walaalkay wuxuu dhahay lugaha ayaan laga xirxiray. Markii dambe aabbahay wuxuu dhahay aamus inaa u sheegin booliiska ayaa wacaynay. Aniga waxaan soo xasuustay hanjabaad igu dhaheen waxa ku dhahay aabbo ii hanjabeen
waxaanay dhaheen hooyada aabaha waa dilinaa. Aaba uma sheegin ninkii inuu dariskeena ahaa oo gurigeena soo dhacay, laakiin booliiska ma rabo inaan u sheego, waayo waxaan ogaa hadaa booliiska u sheego inuu dilayo iyo aabaheena iyo familkeena dilayo. Aabahay booliiska ayuu wacay, dhaqsadii booliiska ayaa guriga imaaday. Aabahay waxbay ka qorqoreen booliiska, su'aalihiina weydiiyeen. Markii dambe aniga haddana wixii waa ilaamnay oo haddana gurigeena ayaa joogi jirnay. Waxaa arki jiray aniga markaan waxaa arki jiray waa is ilowsin jiray oo waa carari jiray. Aniga waxaan lahaa wiil saaxiiba, waxaa ku dhahay habeen dhawaato waxaan ayaan ku dhacay. Waxaan ku dhahay tuug ayaa guriga noo soo galay. Tuugaasna booliiska way qaban lahaayeen. Sax dhahay ii sheeg. Sax ku dhahay hadaa ku sheeg adiga sheegaysaa. Marka dambe wuxuu dhahay wallaahi inaana sheegeen buu dhahay ii sheeg. Waxaan ku dhahay waa ninka xunka oo dariskeena ayaa isaga iyo guriga noo soo dhacay. Wuxuu dhahay marka xunka dariskeena haa ayaan ku dhahay waa asaga oo laftarkiisa gooyay. Marka wiilku wuu nahay oo wuu yaabay. Haddana markii dambe waxaan dhahnay iska daa iska ilow oo game ayaa dheennay. Maalintii dambe iskuulka ayaa aabahay iga soo kaxeeyay. Aabahay wuxuu dhahay ninkii guriga ka soo dhacay ma taqaanaa? Sax ku dhahay may. Wuxuu dhahay ninkii waxaa weeye guriga dariskeena waa xasuusataa, wiilka yariiska u sheegtay aabiis ayaa ii sheegay ayuu dhahay. Waxaan waxaan ku yiraahdo aabe may booliiska u sheegin, aniga way ii dhaarteen iyo aad ay ugu hanjabeen inay anaga dhan dili doonaan oo kulligana dili doonaan. Aabahay wuxuu dhahay waxaas waa ilmaha yariiska ayaa lagu akhriyaa, adiga ilmo yariis ayaa tahay, booliiskana markasta tuugada ayay qabtaan kuwa lacagta dhaca. Marka anaga maxaa noo diiday inaan booliiska u sheegno? Aniga waxaan ka baqayay inay dilaan, laakiin markii dambe aabahay wuxuu go'aansaday inuu booliiska u tago u sheego. Booliiska ayaa aabahay u sheegay oo waxaa la qabtay tuugii waxaa la weydiiyay asxaabta kale xagee jiraan. Asxaabtiisa wuu sheegay meeshay jiraan. Markii dambe asxaabtiisana waa la soo qabtay, kulligood xabsiga ayaa la geliyay. Aniga waxaan ka baqayaa inay dilaan oo markasta intaas ayaa ka baqi jiray oo jiray inay dilaan. Aad ay oo jiray waxaan ku riyoon jiray aabahay ayagoo dilayaan ayaa ku riyoon jiray. Waxaan ka baqaa ayagoo xabsi ku jira inay soo dalbadaan qofna dila. Intaas ayaan ka baqi jiray. Hadda waxaa ka soo waraagtay sanooyin badan. Hadda waxaan jiraa 22 sano. Waxaan noqday wiil aad u weyn oo baari ah ayaan noqday. Ilaa hadda qisadii ma ilaawin oo ilaa hadda waan ka baqaa qisadii inay ilaa hadda dilaan ragga. Ilaa hadda qisadaas saaid ma ilaawin. Waxaan ka baqaa inay hadda dilaanba. Aabahay hadduu maanta iska u sheegi lahayn waa dhiman lahayn. Aabahay wuxuu ahaa geesi aad u weyn oo ilaa hadda aabahay wuu ku faanaa. Asxaabay subscribe noo saara, like noo saara, sheekadan iyo sheekada ku xigta.